Hormud Cable TV وهيلك شعبك. wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reer miyiga Soomaaliland Marwe Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa maanta kulan la qaadatay guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland. Kulankan oo warbaahintu dabajoog ka ahayd ayaa markii soo ilaaday waxa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay Xildhibaan Siciid Carte oo kamid ah guddida joogtada iyo waliba wasiirka horumarinta deegaanka iyo reer miyiga Soomaaliland Marwe Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. maanta halkan waxaan ugu yeeranay wasiirka deegaanka annagoo guddida joogtaduna waxay hawsha golaha sii wadaa muddada fasaxyada marka halkan aad baanu maanta uga mahad celinaynaa wasiirka iyo tiimka ay hogaaminaysay waxaanu ka wada hadalnay hawlaha qaranka ay u hayaan warbixin fiican oo waafiyana runtii aad iyo aad bay wasiir Shukri ay warbixin waafiya ay naga siisay hawlaha deegaanka iyo tiimkooda hawsha ay qaranka u hayaan si fiican oo faahfaahsan ayay noo siiyeen waan uga mahad celinaa sida ay waqtiga noo soo ajiibeen iyo warbixinta ay nasiiyeenba guddida joogtada baarlamaanka ee maanta aan u nimi runtii waxa dareen aad iyo aad wanaagsan ayaanu ka qaadanay sida ay su'aalaha noo weydiinayeen sida ay noo dhageysteen sida warbixin waafi ah aanu isu siinay aad iyo aad baan runtii aanu ugu mahad celinaynaa waxa xusud mudan markaa soo kale waxa dareemaysaa in lagu la socdo oo baarlamaanka kula socdo oo dawladdu kula socoto oo lagu barbar taagan yahay environmentku waa wax inagu cusub deegaanku ilaalintiisu iyo cimilada ay isbedeshayba waa waxa aad moodaa inay aad inoogu cusub yihiin laakiin sida aanu isula jaan qaadayno imika in la gubo ee la gooyo waa garanwaagu waa dhirta waa geedka aafada ee na qabsaday ee dalkii oo dhan qabsaday geedka in la isticmaalo oo laga faa'iideysto inuu u baahanay hadaynu geedka ka faa'iideysan weyno habeen iyo maalin waa ka fidaya ee dhulbeeraadka ku fidaya ee daaqsimeedka ku fidaya ee arkaysa meel kasta sida caasimadii hadaysta maanta haysta hadii aanaynu isaga isticmaalin oo ku maalin iyo habeen ku taaganay dhirtii kale ee ay noo yaray ee aynu faa'iideysan xooluhu inoo cunay wax walba inoo qabanaya oo dabar go'aya adaanaynu kuwa aanaynu ilaashan waxba tarmay laakiin waa Maxamed Andar Hormud Cable TV magaalada Hargeysa.